السلام عليكم kusoo markale kanaalkeeni waa aniga Cusmaan inaad fahantiin ayaan rajeynaa muuqaalkan idinahan maanta waa mid aad u xiiso badan runtiina wuxuu ka bilaabanaa dalka Brazil kadibna Rosa gabar loo magacaabo barneena taasoo ahna gabar caan ka ah social media waxayna leedahay YouTube channel iyadoo muuqaalo ku saabsan bombalooyinka carruurta ku ciyaaraan review ku sameeysa hooyadeeda doorana ay tahay cameraman-keeda wax walbana oo gabadheeda u baahan tahay u sameeyso ayadna guri cusub ay u soo guureen Dora gabadheeda qolka ay jifaleed ka dhigaysa sida mid studio camal ah habeenada kamidana ayagoo iska wada cashinay laga qasayo kadib albaabkooda la soo garaacay Dooran markay furtay ay yihiin family dariskooda cusub ahaa Dooran u sheegay inaan isbarno ayaan rabnaa qoyskan familkooda yar oo Luwan lagu magacaabo isla markiiba aqoonsatay Rosa madam janaalkeedii ku xiran tahay waxaan bilaabay muuqaalo iyo fiidiyowada inay ka duubato gabadhan inta kalimaana si weydiisatay Rosa qolka ay muuqaalada ku duubto waxa rabay inaan arko Rosa gabadhan soo wadis waxay keenay studioodii sidoo kale qolkeedii Luwan aad ugu farxayso wax walba oo gabadhan haysato sida bombalooyin qol aan inaba caadi ahayn balse Luwan mid ay la yaab ku noqonayso iyo in Rosa ahayn gabar hadal badan markii YouTube-geeda ka hadlaysan ka daldalmaysa sida jinni camal haatan ima qolka fadhiga Dora iyo lamaanahan oo shaax wada cabayay Fira Dora ku casuumaysa maadaama ay tahay haweeneyda madaxda u ah haweeniyasha kale oo diriskooda ka warna aad ka soo qayb gasho kulamo aan yeelano mustaqbalkeena ayaan ugu hadalnaa mar kasta hasaatee Dora oo idan sidoo kale hadal badan aqoonin waxay ku jawaabtay u weysay markan Fira su'aalay weydiinaysa Dora oo ahayd away ninkaagii soo jawaabaha aniga gabadheeda ayaan single mother Dorana aad uga maseeraysa labadan lamaane sida isugu dhow yihiin maadaama gacantiisa ka qabsanayeen muddo kadib maalmaha kamida Dora in warkeena iyadoo aad u sharaxaysa miiska qaadada gabadheedan ay ugu soo galeysay iyadoo kartoon bombalooyin cusub kambanin u soo diray wada waxaan u sheegaysaa bombalooyinka cusub ee haatan kambanin ay noo soo diray kama helin ba qaabka yihiin Dora oo gabadheeda wajhi jilacsan ku hadlaysa haddii aan ka helin dimale kambaniga sponsorka noo sameeya heshiiskan kula jirno waa cancel garayna balse Rosa deeso iska dhaf mama video u sameynayna si kasta halka gurigii Luwanda iyadoo iska daawanaysa muuqaaladii gabadhan hooyadeena sidoo kale la joogtay markii arkeen followers ka fara badan iyo daawadayaasha aan caadi ahayn ee Rosa hesho xoogaa dareemayaan maseer Luwana sidoo kale sida taas inay noqoto rajay lahayd caan iyo lacag intaba habeenkiina iyo iska wada cashinay familkan Dora ay ninkeeda Fera u sheegaysa waxaan u maleynaa Rosa iyo hooyadeeda YouTube channelka lacag fara badan ayay ka sameeyaan hasaatee Fera u dhahayo waxyaabahaas noocaas oo kale inaan ka wada hadalna maahan maadaama ayga profit ay u yihiin naga soo xirshekadan subaxda ihtimaalkaasna Rosa iskuulkeeda cusub soo aadaysa markay maadana dhammaan ardayda iidan kaliya isha ku hayaan intooda badan ay yaqaanaan caan dhal maadaama tahay telefoonada la soo baxaan muuqaalo sawiro qof walba wuxuu ka qaatay isla iskuulkana sidoo kale Luwanda ay dhigato Rosana soo waday iyadoona ka dhigaysay saaxiibaynay yihiin fasalkeedana ay soo gelinaysaa kama dambayn daqiiqada kadibna isla xiisadii ay soo gelayso Dora Rosa hooyadeeda waxna soo bixisay macallimadii inay tahay xiisadii oo socotana Luwana Rosa u dirayso qoraal iyadoona ku casuumaysay iskuulka kadib ka warna daan gurigeyga iyo timaad halkaasna ku baashalina isla fariintaasna sidoo kale Dora ayaa helaysa maadaama gabadheeda telefoonka walba ku soo dhaca la socon jirtay Luwana u jawaabtay waxayna dhahaysaa kuma iman kar gurigaada muuqaal ayaan rabaa inaan duubo iskuulka kadib muddo ka soo wareegtana kadib habeenada kamida Dora gabadheeda xasuusinayso in dhalashadeeda soo dhowdahay taas darteedna si aan farxad ku geliyo waxaan ku sameynayaa xaflad isla gabadhan teedana tusaysa doolshihii ama keegii xafladaas la feenfeenan lahaa hasaatee Rosa doolshahaskii carruurta inay yihiin arkayso kama dambeyntiin waxaaba la gaaray maalintii xafladda Rosa oo rabtay dhar iyada ay ka heshay inay xirato hooyadeed ay ka diiday waxayna siinaysaa dharka weliba kuwa carruurta yar loogu talagalay banaakin markay u soo baxday Rosa hatana wax walba xafladan lagu sharxay carruurba ay yihiin kama helayso xafladii markay si dhameystiran u bilaabatay Dora diriskoodii haweeneydii Fera ay si qarsoodi u soo galayso guriga reerkan waxaana fiirinaysaa wax walba horteeda ka soo baxayay xushmada Dora ayaa ugu soo galaysa halkaas markii la weydiin maxaa ka qabanaysaa meesha ayaa ku ogolaaday Fera iska dhigayso inay gurigan isu design garisan yahay aad uga heshay kaliina isla raacayso su'aal ay weydiinaysaa taasoo ay waxa rabaa gabadheeda Luwana inaan YouTube channel u bilaabo bal channelkaas lacagaha laga sameeyo ma ii sheegi kartaa laakiin Dora ugu jawaabtay maanta maalintii shaqada maaha waa maalintii farxadda inay su'aashaas ka jawaabtana diidayba maalintaas oo dhan xaflad socotay habeenkii markii la gaaray waxaan warkeena Dora oo caano gabadheeda xoogaa yar u kululeynaysa inta kalimahana dawo ay ku sii daraysaa kadibna u keentay gabadheeda cabna ay dhahday isla markiina gabadhan hurda dheerba ay gashay sug inta kalimahan intay cirbad soo qabsatay gabadheeda gacanta ugu duraysa subaxda xigtana Dora ka soo adeeganaysa suuqa Beto diriskoodii ninkii ahaa si lama filaan oo la kulantay inta daqiiqadana ay wada sheekaysan
seexanayaan beedna haweeneydan ku dhahay shaqada haddii aan gaarigii kuu gey ka waran wayna kaa qabalaysaa ayadna dhanka kale Rose oo iskuulkeeda joogtay banoonin iska dhiilayeen Rose aynan aqoonin sida banoonig markii iyadii lagu soo tuuro ee qofka lagu sii baasto warwareerna ayay dareemaysaa muddo kadib kuna dhacday bay dhulka iskuulkan kuwada qaybta caafimaadkana ayaa la keenaa dhiig ayaa laga qaadaa si baaritaan loogu sameeyo Dora ayaana kama dambeyntii soo maqlaysa markay timidna gabadheedii oo weli baaritaan lagu hayo kasoo jiida meesha wayna ay kasoo wadaysaaba habeenkaasna sida caadi waa jirtay Dora gabadheeda caanihii siinaysaa intayna saxan ka horna gabadheedii iyaga wada daawanayaan sawiro hore Rose markii aad gabar aad u yar sala sawiradaasna sidoo kale kasoo muuqanayeen Zoe gabar saaxiibadaba ahaan jireen Rose hal maalin wada dhasheen labadooda mar dambana Rose oo iska seexatay Dora intay aad u salibisatay imaanaysa goobaha dhaqan xumada halkaasna ka bilowday nin walba oo ka hor yimaada inay sanka ku qaadato gurigiina ay yimaadeen marsaq dhaxa roobna uu bilowmay inuu da'o gabadheedii oo hurdaysa ka soo kicinaysa waxayna ku qasbeen muuqaal roobkan dhexdiisa inay ku duubaan subaxdii maalinkaas isla fiidiyogaas macallimiintii macalinka isla wada haayeen ay arkayaan waxayna u sheegayaan haweeneydan waqtigan oo kale qof caruur ah bannaanka looma soo bixiyo si muuqaal loogu duubo roobka waa lagu jiran karaa hasaadee Dora ku dhahday fiidiyogan roob rasmi maaha editing ayaan isticmaalay halka loobiga iskuulka Rosa khtarada siinaysa maalin hore baaritaanadii ka qaaday natiijadii soo baxday xogtadan kombiyuutarka aad ka heli kartaa dhahday Rosana kombiyuutarkii dul imaaday bartaas waxay ka ogaanaysaa inay gabadhan qabto cudur hormooniska ku dhaca midaasna ay si fiican u fahmaysay ka soo tagaysa meeshan go'aan ku gaartay hooyadeeda inay ka qariso qalabkeena guriga markay yimaadeen hooyadan gabadheeda ku qasbaysa in muuqaalo dhowr ah duubaan xitaa gabadhan qaajahaysay balse hooyadeeda dheesay soo duub muuqaal muddo kadibna qalabkeeda kamid ah Luana ee Rose ka codsanaysa maadaama iyada la firdhilsheeda soo dhowdahay inay qofka qabanqaabiyaha Rose noqoto hasaadee Rose maskaxdeeda meel kala jirtay aad ugu hulsaneed saaxiibadeeda rasmigeed Zoe meesha ay joogto maadaama muddo aynan ismaqlin adreskeeda magaciwaanadeedana ayay ka baarayaan social mediaha intay shaqada ku mashquulsanaayeen Dora u timid taleefankan ayay ka qaadaysaa gabadheeda Rose intaa ka bacdina hooyadan gabadheeda ku dhahday saaxiibada Zoe xafladadii ugu dambeysay dhalashada waan casuumay laakiin way diiday inay timaado maalmo yar oo kasoo wareegtana kadib waxaynu arkaynaa Fira oo gabadheeda Luana ka caawinaysa muuqaal inay duubto hooyadana maseer u haysi gabadheeda caan dhal uga dhigto waas ay mashquul kadib markay aragtay Dora oo banaanka ordir oo aalimiinta u aadayso haweeneydana macallimidaas jiimka ay soo aaday ayaba kasoo daba aaday hadana halkii birlaqa laga naqalahaas sheeka ay meesha uun ku hayeen Firna hal su'aal maskaxdeeda ku jirtay taas oo ahaydna gabadhaada channelkeeda bishii meeqa lacag ka samaysid mar kalase Dora hadana su'aasha in la weydiiyay ku qancin waxay salaysaa lacagta gabadhaas ayaa iska leh mustaqbalkeedana ay ku dhisi doontaa Firna ay jiimkii ugu soo dhex tagaysaa maalintii xigtana Dora oo macallimiinta kale ugu faanisay muujidin gabadheeda waa dhaleecaan kalkale sidii iskuulka kasoo dhaxgalaysa waxayna weydiinaysaa gabadhaada resultigeedii ama natiijadii ma aragtay Dorna iska dhigayso inay isla resultigaas aragtay beenteedan ay ahayd intaa ka badana gabadheeda meelgeesintii ula soo baxday weydiistay arrinkan Rosana iyadana iska dhigayso in warqadihii natiijadaas ay ka dhumeen wax walbana way ka qaranaysaa iyo cudurada hormoon isku dhacay inay qabto habeenkii markii la gaaray Luana ayaynu arkeen ay hooyadeed gabadheedan u sheegaysaa caawa safraasaan caadihin ayaa aabaha kaaga imaan doona balse midaa ku qasbantahay caawa qolkaada ha ka soo bixin ku jur halka gurigii Dorna gabadheedii sida caadi waa jirtay cirbadeeda ku diraysa intay libisatana imaaday goob waqtigii balaayada lagu cabo goobtaasna si lama filaana Beto kula kulmaysa waa Fira ninkeedii markay hawadaas galeen kadib Beto uu haweeneydan uga sheekeynay arrimo noloshiisa ku saabsiisan iyo noloshantiisa shaqada xaaskiisa gabadhiisa wax walba uu nacay uuna qorsheynayo inuu ka ordabo ayaga oo dhan Dora laftirkeedana arrimo noloshiisa ku saabsiisan uga sheekeynaysa oo dheesay single mother inaa noqoto runtii waa mid aad u adag inay oydana ayay bilaabeen balse Beero gacanta nab ka dhahaysi uu dhaho dajiye anaa dhinacaad joogay hal mariisha ugu soo xad sheekadiina ay ku dhamaatay Fira inay ninkan sanka ku qaadato isna kusoo noqo gurigii Rosa oo saq dhexe maray tuurta ka soo kacday gurigan hooyad ka maqan tahay gacantii hooyaday ka durtana xanuun ka dareemaysa markay taabatay fahmaysa wax inay ku jiraan waxayna soo galaysaa suuliga biriyar intay soo qaadatay halkii ay wax ku jireen dulilinaysa arrin shoog ku noqdan ayay helaysaa oo xaggaas waxaaba ku jira qalab balse ayna fahmin wuxuu yahay waqti xadirkaas maqlaysa gaariga hooyada oo soo baakimanaya si aynu u arkina kusoo noqdo sariirteeda kadibna waxay iska dhigaysaa qof hurdaya halka gurigii deriskana Beero xaaskiisa Fira u sheegay in caawa shaqada uu ka soo dahay kadibna wadada jaam uu ku galay haweeneydan ay ninkeeda weydiinayso haddii saas tahay maxaad fariin ugu soo qoraysay oo uu sheegaysay waxyaabahan dhan mana ilaawday sidoo kale caawa inay tahay haweenkii sanad guurada arooskeena afkan ayay iska dagaalayaan buuqaaskoodana sidoo kale Luana ay maqlaysay subaxdii xigtana gabadhii caanka ahayd oo hooyadeedii wad quraacana ay weydiisay xaaladooda guriga maxaad uga tagtay intay aaday Dorase gabadheeda u sheegtay been oo waxay dhahe alaab qashina banaan ku soo daadinaya kadibna kuwa deriskeena ayaan la kulmay sheekan ayaa meeshaas ku galnayba
maalmaha kamid ah gabadhan iyo hooyadoo muuqaala duubay hooyad ka codsatay waxaa rabaa maanta inaan banaanka kusoo baashaalay weliba Luwana waana ka aqbalay kama dambeyntii idii gabadhan imaanayaan meel lagu nasto Luwanana u sheegtay gabadhan xal inay maqlaysay labadii waalid oo wada dagaalamaya Rosen ugu jaaftay nasiiba baad leedahay haddii aabahaaga uu kula joogo anigan widida aabahayga meelba kuma sheego mana aqaan xataa idooya maanta duu gorimaad kama dambeyntiina Rose Luwana weydiisatay telefonkaada inaa ideemista ayaan rabaa maadaama keedii uu ka jabay waana ay siinaysaa habeenkiina gabadhan street iska joogtay habeen hore tubadii gacanteeda ku jirtay ay ka soo saartay internetka ka raadinaysa waxayna ogaanay in qalab u yahay qalabkaasna wuxuu qofka u diidayaa amaba ka joojinayaa heerka qaangaarka inuu tago inta kalimaan hooyadii oo aaday meeting dumarka ay lahayn saaxiibadeeda Zoe oo qoraysa fariin isla markiina way soo jawaabay kuna faraxday muddo kadib inay ismaqlaan labadooda una sii sheegtay si lamida in hal magaalo ay wada degan yihiin waxayna ku wada ballamayaan Britool aan wada kulanno dhinaca kale doora dumarkii xaafadda sheeko ay meesha ku bilaabeen ku dhacday lahada dumarow aniga shaqo yar ayaa itaala leegana rab inaan soo qabto markay ka soo baxdana meel luuqa hadana gibeeto ahaa sanka ay ku qaadatayba waxaana soo baxay xiriir hoose inuu dhex bilowday labadooda ku soo noqrowso gurigii raarataan dheer u galeysa si lacag yar ee Britool bas ku raacdo hooyadeeda uga xado nasbuxmase aan helin hal shilin isla goortaasna door guri dib uga soo noqday Rosa ay iska seexanayso sariirta hooyadeeda maadaama qolkeed uu ka yara fogaa dooran markay imaaday qolkeedii gabadheedin ay jiifto Rosa u sheegtay maama waan ku xisay sariirtaada ayaa xoogaa iska carafsanay subaxda xigtana Rosa hooyad u sheegay maanta aan xanuunsanahay darteedna iskuulka maadi karo hooyadana ka ogolaatay gabadheeda guriga inay joogto doorna shaqadeedii iskuulka markii aaday Rosa ka soo baxay guriga waxayna saaxiibadeedii Zoe kula kulmaysaa meel beera oo haatan u muuqato maadaama hal maalin ay wada dhashan xitaa inay Zoe weyn tahay arrin ku saabsan noloshooda ka wada sheekaysanayaan iyo Zoe iskuulka xataa inay ka qalin jibin rabto sanadkeedina 17 sano uu yahay Rosana la yaab ku noqotay taas maadaama hal maalin ay wada dhashan iyadana hooyad ku dhigi jirtay mar walba 13 sano jirta arrinkaasna ay aad u walwarsan u soo ordaysay iskuulkeeda irdina markay soo gashay waaba isoo xisaarukay ku dhacday doorana ayaa arkaysa gabadheedina waana ay soo qaadaysaa gurigiina keentay kabacdina yoonaar bilaabaysa inay iska uyso kama dambeyntina geesinta iska dhigtay hooyadeeda weydiisay arrinka runta ayaan igu saabsiisan ii sheeg waxba iga qarqarinaysaa uguna hanjabaysa nolosheeda inaan burburisay social media ayaan soo dhigaa waana ku faxsharaysana dooras intaysan gabadheed u jawaabin boorsadeeda taleefkii gabadhii kale kasoo densatay uu kasoo dhexdhacayo intay taas ka xanaaqdana gabadheeda kusoo xirtaba qolkeeda intaa kabacdina doora taleefonkii oo gacanteeda ku jiray Zoe uu qoraysa fariin ayadoon iska dhigaysa Rosa inay wada kulmaan ay ka codsanaysaa muddo kadibna waa way wada kulmayaan haweeneydana Zoe ugu hanjabaysa gabadheeda ka fogaaw haddii aad ka fogaaweysana waan ku ogahay TikTok ayaad soo dhigta adigoo dhaxda jibinaya niikinaya macnaha waalidiintaadana kama warhayaan taas waan tusa ogaaw gurigeena markay ku soo noqotay qolkii gabadheeda soo gelaysa waxaan dhahay muuqaal ayaan tuubaynaa xataa gabadhan oo gaajaysan oo waxayna cunto rabtay Rose in ikhtiyaar kale u furnayn hooyada amarkeeda qaadatay maadaama maalinkaas moodkeeda uusan fiicnaynin Rosa aad ugu rafaadaysa muuqaalkaas subaxdii xigtana macallimadan maamulihii u sheegaysa gabadheeda Rosa in maalmahan iskuulka ka maqnaa doonto maadaama aabaheeda gurigiisa ay aaday si maamulahana su'aalo dheeraad u sii weydiinin ku bilaabaysa xoogaa yar sanka inay ku qaadqaadato maalinkaasna xisada kadib Luwana u imaanayso macallimadeeda waxayna weydiinaysaa xabdeeda Rosi ma fiican tahay mise iyadan u jawaabin u soo taagta telefonkeeda oo dhahday telefonkaada qabso isla markiina gabadhan ay bilaabayso fariimihii Rose ay diri jirtay inay baarto balse dhammaantood bal la wada taliiday sibinaas wada hadalka Zoe cod u soo duubtay Luwana Luwanan u jawaabaysa waxaanu ku dhahay Rosa maahan waa saaxiibadeeda kale iyadana dalxiis ay aabaheeda la aaday ayaa maanta iskuulka ka maqlaayay Zoe taas isla markiiba shaki ku abuurayso una sheegtay Luwana wax badan ayaa Rosa ka khaldan gurigeena markay imaado hadana muuqaaladii gabadhan daawanaysa waxayna arkay studio wax ku duubi jireen mid ka duwan inuu yahay farsamadaasna doora ay soo degtay si loogu maleeyo gabadheeda inay guriga joogin meel kalena wax ku soo duubayso sidoo kalena gurigii Zoe iyadana screenshot ka qaadanaysa gabadhan muuqaaladeedii si kaas xog dheer uga hesho subaxdii markii la gaaray door oo gabadheed u keenaysay quraac Rosa oo aad u xanaaqsan hooyadeeda kala tuurayso kadib waxay damceen in albaabka dhan ka baxstaa saatay lugta ay ka qabanayso hooyadeed umana ogolaanin kuna sii xirtay markii albaabkeeda gabadhan oo gaajo fara badan haysana cuntadii dhulka ku daadatay iska cunaysa iskuulkiina Luwana ay macallimadeeda weydiinayso Rose maxaa ku dhacay su'aashaasna inay ka jawaabto door weydiiday iskuulkeeda markii ka soo noqotay ayay Zoe video call ku wada hadlayaan Luwana waxaa la socodsiinaa in Rosa aabaheeda weligiis nolosheeda uuba qayb ka noqonin meel joogan xataa inaan aqaanin gabadhaas wax walba ay
doora sheegaysana waxba kamaba jiraan kuna wada heshiiyeen gabadhaas arrinkeeda inay public ka dhigaan macnaha soo bandhigaan siraheeda sheekadaasna ay ku wada hadlayeen luwana hooyadeeda ay si qarsoodiha u dhegaysanaysiin halka Beyro iyo Feera ayagana weli wadaan xiriirkoodii hooseyda ahaa waxayna ku wada ballamayaan haddii aan isla orodna ka waran isla fakano habeenkii maalinkaasna Doora oo aad u sarqaansaneed iridda qolka gabadheeda imaanaysa gabadheeda yarna ku tilmaamaysa inay tahay mid aad u xun hasaatee Rose oo doonaysay arrimahan daawada ku saabsan mar walba la siiyo hooyadeed weydiisay waxay ugu jawaabay dan ugu lama lihi inaan kugu dhibaateeyo mar labaad wuxuu weydiinaadan aabahayga xaguu ku dambeeyey waxay ugu jawaabay haddana niman fara badan ayaa sanka ku soo qaadi jiray aabahaaga qofku yahay hataa ma aqaano haddana waxay weydiinaysaa ay ii sheeg da'deeda rasmiga meeqasanaa jira ahay Feerana ku jawaabtay koritaanka waa wax aad u xun ilmanimada ku horan maalinkaasna doortii maray ahayd macallimadan oo iskuulkeeda jirtay haweeneydii kale deriskoodeed Feera si qarsoodi u soo galayso guriga asbaxmase alarmiga ayaa qaylinaayo alarmigaasna taleefka macallimada uu ku xirnay Rose oo qolkeeda ku xarnibdheedna weli u malaynaysa qof inuu soo galo caawimaadna ay weydiisanayaan asbaxmase haweeneydan deriskooda ee ka sii tegaysa guriga laba isbuuc oo ka soo wareegtana Rosena weli qolkii ku xayirneed martama hooyad u sheegtay si fiican ayaan u dhaqmaa labadeedana waxay ku noqonayaan noloshii muuqaal duubitaanka halka Zoe oo iyadana weli waday cadeymo ku aadisan kama dambeyntii muuqaaladii sawirada ka qaadi jirtay ogaanaysa in Rose muuqaal kasta ay duubto ku soo muuji jirtay qoraal kaasoo aan SOS iga soo gaara ayaana macnaheeda tahay xogtaasi ogaatana Zoe isla markiiba social media ku faafinaysa hashtag hala badbaadiyo Zoorana ahaa isla markiina viral ayuu ka noqonaa adduunka subax ka midna Doora oo hurdada ka soo kacday teleefankeeda 100 notification ka badan ay taalo markii aragtana gabadheedii arrinkeeda viral ku noqda uu yahay xanaaq dartiisna uga soo gashay gabadheeda qolka inay garaacdan ayay ku bilaabeen kuna qasabtay muuqaal raaligelin inaad bixiso waayay waana ogolaanay Rose inta ka bacdina camera inta soo fadhistay taageerayaasha uu sheegaysay inay fiican tahay waxaabaan la sheegayn waxba aysan ka jirin si kastaba Zoe aynan aaminin hadalkaas waxaan go'aan ku gaaray booliska inay u tagto Rosena tan iidaanteedii si qaanin dabeecadaheedana u sheegtay wax walba booliska isla sheekada sadana warbaahinadii waaweynaa qabsatay Dooran lagu eedeynay inay tahay hooyo xun iyo gabadheeda inay ula dhaqanto si aan fiicnaynin waxyaabahan oo dhan arkay Doora maqashay wax walba oo alaabaheeda aruursanaysa lacagtii janaal u shaqayn jirna gabadheedan lahayd qasnad qarsoodihan ugu jirtay soo aruursatay waana ay ka soo carareeba guriga oo dhan hataa gabadheeda halka sidoo kale Feera ninkeedii Beyro uu qoray uu fariin uu qoraal warqad uga tagay markii akhrisana u sheegay adigay gabadhaada noloshiina dhan waa ka baxay isla baxsanay Doora halka labadoodana magaalkii ay aad uga soo fogaadeen beetan qoftantiisa cusub ku dhahay maqaadana cunto nooga soo qabana gaari usug Doora ay gaarigaas dhac ka siinayso basna ayay koree beeton electrickiisa dhahday khudda xafiis nuu kala wad macna baskiina tiisi saarneed gabadheeda janaalkii ay lahayd hawada ka saarayso isaga dhan kusoo noqo gurigii ay gabadheeda ugu soo tagtay dad aad u fara badan isugu imaanayaan raaditaan ay u gelayaan Rose kama dambeyntan iyadoo sariirteeda ku dul suuxsan arkeen qoladii caafimaadkana ayaa gaarigooda ku soo qaaday nasiib xumana Rose ma sii noolaanin oo waaba ay dhimatay arrinkaaskeedana darteed dhiirigelin laga qaaday social media hashtag ka bilowday taasoo waalidiinta loogu sheegay in caruurtooda lacag darteed aynan waxyaaba noocan oo kale ku samaynin muddo ka soo wareegatana kadib waxaanu arkaynaa Doora qoftii ahayd oo magaalo aad u fog ku nool calooshana saasalaxanayso xaggaasna waxaa ka soo cadaaday inay uur leedahay cunugaaskeeda cusubna qorsheed u yahay sidii Rose ay ula dhaqmi jirtay inay ula dhaqanto dhammaadkiina ayaad soo gaartay kumaasani daawashadaada like iyo subscribe